walaalka qaaliga ay dhageysanaya waan ku salaamay markii hore markii labaad walaalkan su'aal ayuu wataa wuxuu dhahayaa waa maxay sababta marada kacbada ay madow kaliya u tahay waa sax su'aal isweydiin mudan waaye waana ka jawaabi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo sidoo kalena waxaad isweydiisaa kacbada maradeeda kalaro badan miyay soo martay kalaro badan oo kala duwan ay soo martay miyaa jira kalaro badan ay soo martay haddana soo qaadan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo madaxdii kalaradaas kala duwan ka dhigtay kacbada maradeedana hadda ayaan sheegi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo sidoo kalena marada hadda aad arkaysa ama kalarka madowga ah aan hadda wada arkayno kulligeena waa kalarkii ugu dambeeyay kalaradii ka horeeyay ayaan soo qaadan doonaa kalarka ugu quruxda badanna waan isla arki doonaa fiidiyogan walaalkayga walaashaada gaarsii laga yaabaa inay ka faa'iideystaan fiidiyoga dhammaystiran ku soo dhaw aadna waad u mahadsantahay walaalkayga walaasheeda qisada maanta aan soo qaadan qiso hal waqti dhacday ma ahan taariikh kala duwan oo kala fogfog ayay ahayd haddii aan ku hormarno waqtigii ugu horeeyay waxay ahayd waqtigii nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu bedelayay marada kacbada dul saaran wuxuuna ka dhigay maro laga keenay dalka Yemen oo ka kooban laba kalarka cadaanka iyo kalarka casaanka xariijimo ayaa dhex marmarayay xariijina waa cadaan xariijina waa casaan kalarkaas ayay ahayd kalarkii ugu horeeyay oo uu nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ka dhigay marada kacbada waqtigii Abu Bakar Umar iyo Uthmanna waxay ahayd maro cadaan ah Abu Bakar ayaa bedelay kadibna saddexdaas khulafaba cadaan ayay ahayd waqtigooda ilaa laga gaaray sanadkii 64 waxay ahayd cadaan sanadkaas ayaa waxa ka bedelayay kacbada maradeeda Abdullah ibn Zubayr saxaabiga la dhaho wuxuuna ka dhigayaa maro guduud ah ama casaan casrigii dawladda Cabbaasiyiinta aan imaan hadana dawladda Cabbaasiyiinta waqtiyadii ay xukumayeen kamid ah ayay waxay ka dhigayaan cadaan kalarkeedii hore ayay u celinayaan oo cadaan ayay ka dhigayaan sanado kadib ayay hadana waxay u soo celinayaan kalarkeedii ay ahayd hadana oo casaanka ah kalarkaas casaanka ah ayay ahayd ilaa laga soo gaaray sanadkii 456 hijriyada sanadkaas ayaa sultaan la dhaho sultaan salaajiqa kalarka kacbada ka bedelaya halkay casaan ahayd wuxuuna ka dhigayaa jaalle ama kalarka huruuda ah kalarka jaallaha ah ayay iska ahaanaysaa ilaa laga gaaray sanadkii 614 kadibna waqtigaas ayaa khaliifka la dhaho al-khaliifatu an-naasir wuxuu ka bedelayaa kalarkaas ay tahay wuxuuna ka dhigayaa kalarka akhdarka ama cagaarka ah isla sanadkaas kalarkii akhdarka ah ayuu ka soo wareejinayaa wuxuuna ka dhigayaa kalarka madowgeen maanta aragno walaalkayga walaasheed su'aasha walaalkeen waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabay qaar kale oo aniga aan ku darsaday xataa inaan ka jawaabay ayaan rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin fiidiyoga ilaa iyo hadda dad soo gaartay waxaan ku weydiinayaa kalarka ugu quruxda badan uguna haybada badan kalaradii hadda aad arkaysay keebuu kula ahaa keebaa ugu quruxda badan uguna haybad badan aad is leedahay adiga ra'yigaaga aniga ra'yigayga haddaan ku darsado kon madowga ah wax dhaama male aad baad u mahadsantihiin khayr badan